jibooday markuu xabiib warbixin naga siinayay jaamacaddan waxaad noo sheegtay in jaamacad tahay 2000 la bilaabay 2009 la bilaabay hawshaad qabateen ay tahay hawl aad inkastaan aan ku dhex wareegin hawl aad iyo aad u qurux badan haddaan kaa kasoo wareego aniga muna ahaan waxaan u malaynayaa in caawimo banaanka ah oo dee waddankaas aan deganahay aan joogno in aan la koobi karaynin wax gacan qof kale kaaga jira laakiin diasporada hadda anigoo kale ah volunteer fara badan ayaan ka furi karaynaa jaamacadahan lecture ka siiyo Sweden oo waxa u badan macallimiinta inta badan oo aan tutor garayo macallimiinta Swedishka aan masterskayga kusoo qaatay marka aniga bun ahaan waxaan u malaynayaa xoog iyo maaragtay awood iyo jaamacadaha Sweden aan ugu xiriir kala leeyahay in aan waxyaabo badan oo maaragtay lacag ku xidhnayn in aan insha Allah haddii la yiraahdo nabad noqdo intaan waqtiga kale aan imaanayn inaan isku taxamujiyo bisha shanaad haddii la hayday tahamada beenta haddii aan masterska qaato in aan idin imaado PhD-ga in aan idin imaado aan maaragtay aan wixii aniga xoogayga ah aan idinku caawiyo iyo aqoonta teeda labaad jaamacaduhu waxay ku noqdaan qualification standard waxay ku noqdaan waxa weeyaan jaamacadda ardaydan hadday sameeyaan wax la yidhaahdo research ku saabsan weliba markaad hadda aan eegay agricultureka qaybta ah because attachmentkii baad ku samayn karaysaa dhulkii baad haysaan waxaad haysaan facilitieska xitaa haddii idinka maqan yahay dee idinkaaba laydiin iman karaa oo maaragtay research wadamada kale maaragtay aan joogno aad soo xasuustaa maxaa la dhahaa sub-saharan ah agriculturekooda weli waa sidee marka waxaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah bismillahi karim haddii ilaahay yidhaahdo in aan maaragtay aan xiriirka wax lagu qabsada xiriir fiican inaan wada yeelano asalaamu calaykum arrimaha bulshada xildhibaan cibaado rasaabkii hore maaragtay kabiyey xabiib limaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulli anu aad baan ugu faraxsanahay isbedelka weyne jaamacaddan anigoo waqtigii aan mataqaanaa ay la establish karinaya ama bilaabaseen maaragtay rool ku lahaa oo kasoo qayb qaatay aad ayaan ugu faraxsanahay horumarka ballaaran ay samaysay shalay iyo maanta warta kulli tusaale ahaan waan u sheegay qoladanoo qaahira ayaa waxay ku yaalla slogans waaweyn baa ku yaalla oo ku saabsan educationka iyo waxyaabo kala duwan waxa ugu muhiimsanaa waxa la yidhaahdo when the learning is stops bay qoreen the growth is stops macnaha waxa weeye learningku inuu socdo isbedelku inuu socdo meesha waxaan ka bilownay 4 iminkana waxaan maranaa 9 baan maranaa ambitionkana waan arkayaa aniga premises gameka igu horeysay oo waa premises si kale loo develop gareyn karo haddii la iskugu tago waxaana ila tahay dadka reer gabley waa dad backgroundkooda inta badan yahay dad maaragtay design oo beeraley oo degan population density-guna aad buu u ballaaran yahay waxaan u malaynayaa islaantii tiri ninka taftaalihi kama udhali waayo inteeda wax garanaya jaamacadda wax kale ka dhigi lahaayeen haddii dalka iyo dibadba ay u soo jeestaan marka taasina waa muhiim oo fariin aan u dirayo in dadka dibadda ku nool iyo kuwa gudahaba waynu garanaynaa reer Somaliland way isgaranayaan reer Gabley waa la garanayaa capacity-ga ama dadka populationkiisa ama dhaqaalihiisa ama aqoontiisa inta baad la xisaabiyo waa la isgaranayaa marka waxa weeyaan Soomaalida xukuumadda arrin xum awaar ka daran arrin baa muhiim ah in la isku keeno talada ideada haddii sidii wax loo qaban lahaa dee meeshii ay ka dhalato alxamdulillah waa horumar ballaaran baa ka iman lahaa nin professor hayo allah yarxamuhu dhintay loo nisay Umar Usmaan Raabi baa wuxuu yidhi han meel la hasheen ma deeq uma la leeyahay laakiin seen cawska ugu gurnaa wala lama oran heesta laguma darin kuma taalada heestana kuma jirto han meel la hasheen ma deeq laakiin seen cawska ugu gurnaa kuma jirto marka ideaduna waxay u baahan tahay in laga fikiro helideeda fulinteeda dhibaato male talada isku keenadeeda baa muhiim ah markaan soo noqono anaga missionkeega anu diyaar baan ahay kulley oo horena waan uga qayb qaatay daftarka iyo adeega ku rooyay barnaamijyadii horumarka waqtiyadii hore ka dhacay Gabley hadday noqoto xagga isbitaalka iyo hadday noqoto hadii LMP badankeeda leeyahay oo mataqaanaa jaamacadda iyo mashaariicda biyaha
iminka waxaynu ku dadaalanaa horta horumarka jaamacadda horta waa kulli waa muhiim waana heerta kuu noqonaya adduunyadana maanta waxa waxu tara waa educationkuna waxa weeyaan waxa la yidhahdo waa long term investment waa ku human investment weeye bini aadanka maaragtay ayuu maaragtay wax walba ay ugu horeeyo ilaahina uu maaragtay kitaabkiisa ku sheegay oo karaamaysan bini aadanka haddii la maalgeliyo material wax walba ugu horeeya marka jaamacadda inuu xooga saarno oo nasiib wanaagna muna oo kale opportunity badan oo sidii idinku ka dhawaajiseen baahida jaamacadda la xidhiidho la heli karaa barnaamijyada especially macallimiin professional oo loo heli karaa oo waqti ku qaatay internship halkan oo mataqaana يعني كادر يعني ما هو الليفل كجامعاتنا كروس سوق هذا ولا هي الكرابيلة تاعي تكلم عن أنو كورسونا كله توي وأنا مشارك معي كبركي مدري أنا سافر كود شرني قولين كي أنا هذا الشيء كسرني أيوة كشري سأقول أنت الشيء كسرني إني ما الشيء كسر كله سافر كشري هذا رنت الشيء مركاو حيكون في عنده هاي جامعة وشري ويحكوا جويان ثلاثة إن لو رصدا يبغى بعض إلى ثلاثة نور ولا نوها جايشي marka inta badanna aan waxaan aaminsanahay waxtarka iyo waxqabadka iyo horumarku wuxuu ku jiraa in dadku waxaan dantooda ahayn aan iska daayaan wixii danta ah ay xoog geliyaan baa muhiim ah waayo marar badan baa wax ku dhawaaqa warniyo haddii yani hal xoog yani kamid ah afar yani haddii loo qaybiyo waxa propaganda iyo local politics waxaan macnaheedu ummadda xutira in la geliyo haddii rubc la gelin lahaa horumarka waddanku isbedel leh فرصة قاعد اللي قلناها وانكفر حسنا هيميتي كينن أفتيد جالس بين نوت أيضا مثلا يمكن ما دون دي معناته أركي معناته هو عم بقعدنا ما تعنو بلونا قلن كوري حليل كنا يو وضشقين تنا ومهين ربوت كنا ونفعيا خلنا هذا كوين مديري السلام عليكم ورحمة الله كل واحد كل رقنا على هذا أنا كل حلو كسارين يعني كوردين كريو وضنا حلوين بيسارين بس كانوا بيسويجيا waxaan leeyahay wani qolooyinkana waxay oran doonaan waxay ugu si fiican u sheegin malaha si qabashadu hadii deeb garas wax qabashada ilaahay bahay ijraa xalayna inaguna dhaqaaqa sameeyno ilaahayna qadarka wahay dadaalka ma looga baahan yahay marka waxaan u baahanahay taa coordination inuu hagaago waayo wax alle wixii loo baahan yahay si kooban waa in aan u gelino barnaamijka aan gudbinayno oo marka la yimaado waxa iyagu umka document ku helaan iyo waxa ay markaa degmada oo kale hadhowto marka yimaadaan ama gobolka xaruntiisu ay ku arkaan ay iswaafaqaan lafteeduna si aan ugu professionalism ka guuraago oo aan wixii de mas'uuliyadeedii uga soo baxo iyo dadaalkii iyo fursigan galay rabaan salaamti iyo intii kale dadmasantii waxaan horta maanta aad ugu faraxsanahay imaashiga timaadeen iyo anaka qaybgalka ka soo qaybgalay waftiga quruxda badan ee ka yimid Suudaan wax badanna noo wada anakuna ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in Ismaan si fiican ula shaqeyno oo anakuna aan noqdo coordinator-kii gabilay oo labadayada isku biirsano iyo in damaayirkina uu joogaa barsaabkii uu joogaa intayadii wixii macluumaada jaamacadii dhakhtarka meel walba warbixinteedii oo sideedii anakoo wada shaqeynayna inaan ula nimaadna Ismaanna sida idinka idinku soo gudbiyo oo anakoo wada shaqeyn leh aad noo timaadaan baan ilaahay ka rajaynayaa waanad mahadsantihiin aad baanad u mahadsantihiin جالية درسير سوماليلاند dalka Suudaan coordinator-ka dawladaha hoose iyo jaaliyadda ama tiimkan noo yimi wasiirkii hore Ismaan Sheekh governatorial hore gobolka Dr. Habib iyo xildhibaan Cibaado Maxilmi Leila aan Muna oo iyaguna ka kala socda NGO caruurta iyo hooyooyinka iyo manhajta waddanka Suudaan ama tayeenta كسبتها هنا دمانتي واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب كنتي ولا قشي كي تاريخ قبلي يو دورك أي كل هذا هاي جودهان هذا لنا برشلة هاي يو لنا عكسوعة هاي باستراتيجية ده يو حلو يقانو كثافة سكانية ما دتك كتير دتك أدو بدن intaasoo dhan waxa ka sheekeeyay barsaabkii hore iyo wasiirkii iyo cibaado marka kulli sida la sheegay waxay wafdigan hordhac u yihiin delegation sare oo ka imaan doona waddanka Suudaan oo ka kooban dawladda Suudaan ilaa presskii ilaa wax walba
oo ogaan doona baahiyaadka halkan laga gudbiyo maaragtay si ay wax inooga qabtaan insha Allah mustaqbalka. marka kulli anigu waxaan kaga bixi doonaa wixii baahiyaada haday tahay jaamacadda baahiyaadkeedii waa laga warramay iyadoo qoraalna insha Allah waa la gudbiyey waana la soo gudbi doonaa hal marna war soo raacin doona marka la soo wada gaarsiiyo. isbitaalka weyn isaguna intii waa gaasmi isbitaalka weyn sugayaa, sheelka weyn intii waa la nagu sugayaa, saldhiga waa la nagu sugayaa, xarunta dawladda hoose qaabka cashuuraha iyo qaybta public workska iyo xafiiska planning ee dawladda hoose intaba agaasimayaashoodu way noo fadhiyaan. marka baahiyaadkooga iyaga maaragtay briefing naga siin doona haddii la haydhaa. laakiin guud ahaan waxaan ku faraxsanahay inaad ilaa waqtiga caawa nala joogtaan Gabiley oo jaamacaddii Timcadna nala fadhidaan. runtii waana wax taariikhda qori doonto oo nin walba wuxuu ummaddiisa u qabtay ay maaragtay gaari doonto taariikhda xus doonto wey. cismaan runtii jaamacaddan aynu joogno dhakhtarka Gabiley biyaha yacni doorku ku lahaa lama qiyaasi karo. waa wax taariikhda kugu jira weeye ilaahay agtiisana aad ka heliso Gabiley noogtahay weeyaan. oo anagu dadkii dee u taagnaay maaragtay joogi baan nahay waqtigaa wixii aad qabanaysay taariikhduna iyada is qoraysa. marka goor gaaban hadalkeed gaaban meelaha aynu soo marayno markaynu warbixinadooda soo dhageysano ayaana warbixin guud oo kale idinku dari doona insha Allah. hadalkaygu saxada wuxuu ka kooban yahay mahadcelin waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi